war degdega had isoo gaaray war degdega had isoo gaaray war degdega ayaan maqlayaa waayahay war degdega ayaa hadda soo gaaray mataqaanaa ciidamo Ethiopian ah oo dababaad wato ayaa waxay ku soo wajahayeen degmada Afgooye iyo gobolka Shabeellada Hoose ciidamadaas oo qayb ka ah ciidamadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalbaday waxaana la sheegay in ciidamadaasi u socdaan in mataqaanaa Farmaajo kula soo shiiyeen hubka ay dhigaan oo hubka dhis ugu sameeyay ciidamada u dhashay beesha Hawiye ee jooga gobolka Shabeellada Hoose si kadib uu suurta gasho inuu muquuniyo oo mataqaanaa oo ku sii shaqo ama uu aado dhinac mataqaanaa muqdisho marka arintaa way arin degdeg ah had soo siyaaday ciidamada Ethiopianka dabadu maanta ay xuduud soo dhaafeen haddana waxay ku wajahan yihiin sida la xaqiijiyay mataqaanaa waxay ku wajahan yihiin ciidamadaas degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku wajahan yihiin arintaa waa arin xasaasiya waxa muuqata Ethiopianku inay soo laba kacleeyeen in dagaalkii looga adkaaday lagu jibiyay ee muqdisho ee iminka dib boorku ka jafayaan oo ay mataqaanaa la safanayaan mataqaanaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay u arkeen in ay dadku ku fisho karaan sida darteed maanta oo kale ayuu jihaadku xaq yahay maanta ayaa la doonayaa in loo toghayo ciidankaas in si rasmi looga tago haddii dalkeena ay sharci darro kusoo galeen ciidamo Ethiopian oo military oo ay doonayaan dadkeena inay xasuuqaan waxa uu qof kasto waxa ku waajiba inuu ka dagaalamo inuu ka hortago ciidamada Ethiopianka ah ee dalka soo galay جمال نور هذا يبغى لا يسوق أسوميا ساعات كوفة فايس حقته كوسا قركم من تيجي سيام كوي في الجري هذا مغلس جمال تاسي حنكار جمال إدمن حاجي يسكري يا سكري من قبل أيوه جمال هذا مغليسد وحكوسا قركم من تكوسا قرماشة سيام كو أركو Ethiopian كسيد لسجع اليوم بلا سجع لدونا وح ورا رمله هذا مركي حبشي جات الصومال وين قامت ديارة واقع السوم الجمال وضع مغليزي السلام عليكم داهر وعليكم السلام ورحمة أرنت إثيوبيان كان وصل قرطة إذا إثيوبيا يقص على أفجوي داهر أريكا أيضا مرهور أيا ددك وقبنايو markii telefishinka qaranka Soomaaliyeed laga yiri qalbi dhagax inta la dhiibay oo ku hadla afkii gabro ayuu Farmaajo diyaariyay Farmaajo wuxuu ku yimid rabitaanka shacabka Soomaaliyeed laakiin Farmaajo wuxuu ka doorbiday in rabitaankii in Soomaaliya ay meel dheer ku dhacdo Farmaajo wuxuu dhameystirayaa maantay wixii adeer Cabdullaahi Yuusuf uu ka tagay Farmaajo maanta wuxuu ka shaqeynayaa inuu hal shimbir 10 dhagax ku dilo maanta wuxuu ka shaqeynayaa inuu la dagaalo Shariif Xasan wuxuu la dagaalayaa maanta inuu la dagaalo Jubbaland wuxuu rabaa maanta inuu la dagaalo dadkii 6 sano meeshaas joogay ee guutadii ka soo hartay guutadii Goobanle maanta waxay iclaamiyeen in dadkii ka tirsanaa ciidankaas oo beela qaasa u badan in ay maalmahan iibiyaan waa ciidan qabiil waa ciidan ujeedo lahayn
waxaa la yidhi eygaaga marka inaad deshid rabtid waa inaad maalmo hore waaya eygu waa dad cun ujeeddadaasu waxay tahay eyga inaad deshaad rabtaa sidaa awgeed god dheer ayay soomaaliya ku dhacday etoobiya waa danley etoobiya waxba macnaha ma qaban karto farmaajo wuxuu sheegay kun ciidana inuu etoobiya ka soo wadan doono laakiin waa 3,000 oo etoobiyana waa 30,000 keliya waxay siyaadinaysaa in argagixisadu guulaysato laba waxay siyaadinaysaa in dad badan oo soomaaliyeed oo soomaaliya rajo ka qabay rajadu ka dhunto saddex waxay ceel dheer ku ridaysaa in dadka soomaaliyeed ay kalsoonidii ay dowladda ku qabeen ama soomaalinimada ay meesha ka baxdo afar waxay siyaadinaysaa dad badan oo soomaalinimo ku jirtay inay argagixisada raacaan sidaa awgeed waxaan leeyahay meeshaas waxaa ceel dheer ku dhacay rajadii soomaaliyeed meeshaas waxaa kala aarsi ku yimid rajadii soomaaliyeed meeshaas waxaan suurtagal noqonayn oo marnaba aan suurtagelaynin xagaalo geel wax gunta la geliye ka weyn 2,000 oo ciidana oo beelaha hawiyaa oo jooga shabeellada hoose ma dhici doonto in laga adkaado ciidankaas oo taageero ilaa 100,000 ilaa 500,000 600,000 oo taageero dhow oo muqdisho iyo shabeellada hoose heli kara waxay noqonaysaa natiijo lagu hungoobay farmaajo iyo kayrana waxay noqon doonaan mid dad meel dheer ku rajadii soomaaliyeed meeshaasna waxaa ka baxday wax la yidhaahdo wadani nationalist meeshaas waxaa ka baxday wax la yidhahdo nabad iyo nolol waxaan ku sheegayaa berita noqon doontaan dowladda maraykanku waxay ogaatay qaraxii 14 ilaa 16 ka dhacay muqdisho qaraxii ka dhacay in dowladdu ay furisay saraakiil ka mid ah dowladda oo shabaab ah oo argixisada la shaqeeyay kuwa shabaab ay fuliyeen waxay jaraysaa mushaarka ciidamada xiriirkan way jaraysaa diblomaasiyadda dowladda Soomaaliya xog muhiim ah way taas waa mid tan labaad waxa weeye maxaad Soomaa hadda maanta ma cadda in mar kale jilibka la soo dhigayo dagaalka Itoobiya soo laabtay waxaan xasuusanaynaa nabaradii Soomaaliya ku dhacay ee aan la qorin dadka Soomaaliyeed problemka ku dhacay dadka reer Soomaaliland waxbay qoraan kuwa reer Puntland qaar baa wax qora dhibaatada nagu dhacday dadka reer Muqdisho waxba ma qoraan dhibaatadii xanaftii problemkii xasuuqii magacyada loo bixiyay dadkii ku waash ilaa hadda ay joogaan dilalkii qorshaysnaa ee naxariis darrada ahayd dadkii wallahi dadkii hooba ku wilaayay mar labaad in Soomaaliya loogu yeero iyadoon baarlamaan la marsin mar labaad in Soomaaliya loogu yeero iyadoon afti dadka shacabka laga qaaday mar saddexaad in haddana loo soo celiyo la dhammaystiro waa isku toonkii Cabdullaahi Yuusuf oo garaacay problemka dadka reer Muqdisho 2007 joognaa hadda 2007 problemka dadka reer Muqdisho ku dhacay 2007 inay dib ugu noqdaan oo Soomaaliya ay godka ku dhacday fiiri ma ciidan Etoobiyana madaxweyne Soomaaliyeed oo dhaqanka Cabdullaahi Yuusuf iyo Farmaajo leh inta wado Hargeysa ma geey karo waa Soomaaliya inta wado Puntland ma geey karo meesha la isku haysto oo dadkooda la meed garaacayo waa reer Muqdisho meesha la meed garaacayo oo dadkooda la dagaalayo waa hawiye sida awgeed Etoobiya maanta waxaan u sheegaynaa Etoobiya Soomaaliya wax wanaaga kuma yaalaan farmaajo oo aad qabiil ku soo raacdeen waad ku hungoobaysaan arrinka ayadana waxay saameyn doontaa Etoobiya gudaheeda in dhibaatooyin badan ka dhacaan oo ay sababtaasu tahay waxaa loo nuglaan doonaa Soomaalidu in badan oo kamid ah inay raacdo dowladda Eritrea Soomaalida dowladda badan oo Etoobiya la dagaalan inay Egypt raacdo Soomaalida inay hadda Egypt geyso Hirshabelle Soomaalida inay raacdo cid kasta oo Etoobiya la dagaashan arrimaas ayada ayaa fuudaanaya Soomaaliya waxay noqonaysaa bahal la galeen waxa fuudaanaya inay cid walba ka adeegato waxa dhacaysa maamul goboleedyadu inay kala fakadaan waxa dhacaysa in Etoobiya loo nuglaado waxa dhacaysa si raqiisa in loo iibiyo maxay yeelay madaxweynihii nationalka sheeganaya ayaa xaraashaya Soomaalida waxaad u malaysaa marka fakayfa dulaamu yiri hadii nuurkii ka yahay Soomaaliya hadda in kasoo fadlan la yiri oo dawlad rasmi la yiri haddana waxa muuqato sida laga helay diblomaasiyiinta Mareykanku in beesha caalamku ay arrinta ka qowmeeyeen oo dib ugu celinayaan ku meel gaarkii si loo xakameeyo maadaama la ogaaday in hub ku soo socdo gudaha Soomaaliya maadaama la ogaaday in dadkii loo doortay madaxtinimada Soomaaliya ay la shaqeynayaan kaxsaday aad iyo aad taas waa biyo kama dhibcaan دبل تربل أنجتك مقدسة كجرا من أو كجرا مالي وحنا كلفي ومقالة أم بتلاتة لعيب سيدا أوجد وحنا ربنا الله أسكرت مغلسة برا وإلا مقدسة أنت سوسرجوج وحد أوغانيسان فرماجة مانتي وحكوت رجالي إنه سيدي عبد الله ولي مورج يغنى رجل كأم حارة رجل يغنى ورجل يغنى وحي عبد الله يسوف له 2007 إن لون نقضه 8 سنة كذب فرماجو
ilaahay waxaan ka bariyey dadkan waad khiyaantay laakiin waxaan u sheegayaa khiyaanada aa khiyaantay inay etoobiya in iyadu ay noqon doonto sidii markii horeba ay tiri inteen ka baxaa waxaadna ogaanaysaan in farmaajo maantay uu kaabaanka u xooday shalayna uu yidhi shabaab lagama adkaa karo ciidankii dowladda uu qabiil ku tilmaamay natiijada rasmiga ahayd oo ilaa waagi ilaa hadda laga shaqaynayay daahir waa taas wayna muuqataa marka waxaan la hadlayaa xildhibaanada hawiye askarta hawiye degaankiina ayaa wuxuu noqday degaanka keliya oo sunta loo soo dhoofiyo ciidamada loo soo dhoofiyo caloosha shaqaystayaalka farmaajo idan kalama tashan baarlamaan ma marsiin waa dictator kolleyba inkastoo hadda xasuuq ku soo shabeellada hoose oo sheegow iyo waafow iyo ninka janaal subagle ciidanka amisom taysta ay xasuuqayaan dadka hawiyaha u dhashay shalay abgaalka xasuuqin u xasuuqeen gaar ahaan wacbuudhinkii haddana kolleytoo sida muuqato dadku isku tashanayaan waa tashiya arrin talay galaysaa aad iyo aad marka daahir waxaan ku sheegayaa dadku qof soo jeeda lama dilo qof soo jeedana lagama adkaado dadku markay inay isbeddel sameeyaan doonayaan waa nooca sidaa awgeed waxaan uga digayaa baarlamaanka soomaaliyeed caaway in roolkii ay ninkay doorteen meesha uu ka baxay sidoo rabana uu yeelayo xataa cabdullaahi yuusuf wuxuu yidhi ciidanka etoobiya baarlamaanka in marsiiya laakiin farmaajo cabdullaahi yuusuf ayuu ka sii xag jiraa xataa baarlamaan ma marsin waxaa kaloo ogtahay ninka le cabdullahi goodax barreed ogeed inuu si uga soo horjeeday dowladii hore waxaa leeyahay 10 kuna inkastoo loo bixiyey goodax xabashi haddana waxaa leeyahay 10 kun oo dollar ayaa la siiyaa bil walba goodax barre oo dadka etoobiyaankan kenya uu ka mid yahay aad ayaan ugu xumahay goodax barre oo qabiil soomaaliyeed oo aan aqaano oo ixtiraam badan aan u hayo ka soo jeeda in uusan maanta kaba hadlayninba xataa dadkaagii biyaha ku fakaday kanaaca ku dhacday ee keliya uu soo fariisanayo meesha oo leeyahay mahad salaad muxuu sheegay marka aad ayaan ugu xumahay taariikhda hadda goor waxaan maqli jiray nin markii baarlamaanka la soo galay iska hurdooda laakiin keliya fiiriye hebel uu gacanta u taagay roob hadda roob iyo suudayna uu iska leeyahay marka waxaan ku xumahay goodax barre wixii loo xil saaray ciddii uu matalayay garoonkii beledweyne oo xiran dhibaatada dadka ka taagan dhammaystirka hirshabeelle dadka problemka haysta colaadaha haysta iyo dadka in horumar loo sameeyo waxuu ka door biday inuu yidhaha mahad salaad maxuu sheegay marka waa uu habsaamay ciddii soo dooratana waa kula go'day marka aad ayaan ugu xumahay goodax barre laakiin dhibku oo ka haystaa isaga lagu leeyahay wasiira loo ballan qaaday bishii 10 kuna la siiyaa intaas isku bedelay waan ka xumahay waxaanba ka xumahay in shaqadiisa ay noqoto inuusan ajandaba la imaan hebel muxuu sheegay hebel wuxuu sheegay nin baa waxaa la yidhi ilaahu hebel wuxuu yidhi maalin weyta ka yaabay wuxuu yidhi madaxweynuhu ma dhihin dadka ciidanka soomaaliya caqiida ku dagaalamayaan ma jira ciidan ka soo baxa furmaha ciidanka baraawe ka baxa iyo beriira ka soo baxa iyo inkaraya macnaha si xun ugu safaadaya safaadkan waa nasiib xuma hadda ka hor ninkii la dhihi jiray maaragtay geela furana wuxuu yidhi ceydiid baan kab ku taagay ama aan la kalaamay miyaad saas onada agteeda koobku doon islahayd marka ani hadda waxaan leeyahay banahay mahad salaad asagaaba xildhibaan mucaarad ahe waxa mahad salaad laga goobayo anugu waa garan waaye laakiin waxaan isleeyahay ma garanayo kulli hebel aan la kalaamay haddii macno samaynayso laakiin waxaan rabay inuu ka hadlo hirshabeelle maslaxadeeda hirshabeelle in dekad loo sameeyo hirshabeelle in kaaba dhaqaala loo sameeyo in la dhammaystiro maaragtay problemka dadka jira garoonka beledweyne waxaa ka jira fatahaadda iyo biyo la'aanta in dadkaas horumar loo sameeyo meeshii laga sugayay ajadiisii wuxuu noqday mahad maxuu sheegay xajka ha la aado xajka aadi mayna kiniisaddan aadaynaa mahad muxuu yidhi kiniisadda ha la aado may kiniisadda ma aadayna xajka aadaynaa marka odagay waan ka xumahay mahad muxuu yidhi roob allah keeno roob ilaahay ma keeno barwaaqa ha timaad barwaaqa ilaahay ma keeno marka ajendaba lama imaan taas waxay noqonaysaa marka qof aan dhammaystirnayn shaqadii loo doortan aan garanayn marka berito lamaad hadduu seexdo asagana ma seexana ma soo jeedaya hala seexda hadduu yidhahdo taas waxaan leeyahay marka waan ka xumahay laakiin waxaan leeyahay xildhibaanada muqdisho u dhashow dadkiina u istaaga kana fikira waxa farmaajo uu samaynayo waana idinku soo socotaa waxaana leeyahay etoobiya soomaaliya way ku lugu'i doontaa waxayna u nuglaynaysaa in argagixisadu kaliya ay horumar samayso soomaaliyana duleelada kusii badan doona taariikhda caawa aan kala hadlayo ninka leedaayarow waa laga shallaayi doonaa farmaajo caawa wuxuu ka shaqaynayo xaqiiqo waay waan hubaa dad badan ayaa waxay raaci doonaan xabadda afgooda ka bilaabamayse ordhiglay ka bilaabanaysaa aad iyo aad marka haddii ilaahay yidhaahdo dadku maanta way soo jeedaan wayna og yihiin haddii etoobiya arkaanna xasaasiyad xun ayay dadka ka qabaan etoobiya cirkaasay ku dhegaysaa xasaasiyad xun ayay ka qabaan cabdullaahi yuusuf ninku dhaqana oo etoobiya keenay 2017 10 sano kadib ujeeddadaas waxay tahay isku weer wan in weli la kala arsanayo qaxan qaxa ka horreeyey ayaa oday cabdullaahi yuusuf yidhi waxaa dhammaystiraya tii kale hadda farmaajo dhammaystiraya sidaa awgeed waxaan leeyahay war xildhibaanadow
dadkan aad matashaan ka fikira askarta bal joogta ilaa baraw ilaa iyo laanta buru joogtana waxaan leeyahay ogaada in ninka la dhihi jiray wax sharciyada aan la marsiin etoobiyana waxay u timid ee nooca tahay soomaalinimadiina iyo deegaankiina iyo dadnimadiina difaacda waad guulaysanaysaan sida hore u guulaysateenba annagoo etoobiya meesha joogta ayaan la joognay indhahan waa ka qoryo jirnay waayahay ismac salaama waa mataqaana waa isdiyaarinayaa waxaan leeyahay habeenkeedii wacnaado waa inoo kulanti dambe